بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeeni nutritionka iyo dietka ama cuntada iyo nafaqada maantana waxaan rabaa inaan ka hadlo cashar xaqiiqdi muhiim ah casharka maanta aan rabo inaan ka hadlo waxaan rabaa in aad ila daawataan casharkaasna magaciisa waxaa la yiraahdaa mowduuciisa waxaa la yiraahdaa 8 cunto oo mar walba lagaaga baahan yahay in aad ka dheeraatid 8 cunto aan rabo mar walba inaad iska ilaalisid oo aad ka dheeraatid 8 cunto aan sheegayo qaarkood waa cunto caadi ah qaarkood wax cunto la mid ah waaye qaarkoodna waxa waaye waa cabitaano marka mar walba iska ilaaliya 8 shay oo aan soo wado aan la wadaagayo kan koowaad waxa waaye waxa laga rabaa in aad iska dhaaftid oo aad ka dheeraatid soft drinks waxay yiraahdaan ama cabitaanada fudfudud waxa laga wadaa sida Fantada sida Coca-Cola sida Sprite-ka sida biyaha qasan oo kale ama mataqaana mango ha ahaato ama fruit ha laga sameeyo ama biyaha hadda aan soo sheegnay oo kale ha ahaatee mar walba biyaha noocaas oo kale ah ma fiicna sonkor badan oo la yiraahdo fructose ayay leeyihiin sonkortaas waxay u xun tahay kelyahaaga waxay soo kale u xun tahay maskaxdaada marka mar walba aad biyaha noocan oo kale cabtid sonkortaas waxay ku dhacaysaa beerkaaga beerka weyn iyo beeryarahaba way ku dhacaysaa soo kale waxa waaye maskaxdaadana way ku dhacaysaa marka waxa loo baahan yahay soft drinks mar walba in aan ka dheeraano aan iska dhaafno aan farahan ka qaadno cuntada labaad ee iska ilaalinaysid waxa waaye xanjada la ruugo ama la calaanjiyo in aad ka dheeraatid ayaa lagaaga baahan yahay sababtaha xanjada laba midba way samaysaa kow xanjada markaad cuntid gaajo ayay ku ridaysaa gaajadaas waxa laga yaabaa in markaas aysan ku haynin marka cunto aadan u baahnayn ayay xanjada kugu sameynaysaa hormoono jirkaaga ku jira ayay kicinaysaa si markaas waxa waaye aad cunto u cuntid marka waxa loo baahan yahay inaad iska dhaaftid xanjada kuma fiicna caafimaad ahaan kuma fiicna soo kale xanjada waxay mataqaanaa soo jiidataa oo ay nuugtaa oo ay qaadataa biyaha jirkaaga ku jira ayay mataqaanaa soo nuugtaa marka mar walba inaad iska dhaaftid ayaa fiican xanjada dad badan baa xanjada jecel inay cunaan laakiin waa laga fiican yahay dabci fiican ma aha cunto fiican ma aha cuntana ma ahan ma garanaysaa marka in iska dhaafo ayaa fiican cunto saddexaad ee mar walba loo baahan yahay qofka inuu iska ilaaliyo waxa waaye cuntooyinka sodium diet lagu yeero waxa waaye cuntooyinka cusbada lagu daro cuntooyinka waxaa soo hoosgalaya cuntooyinka laga soo iibsado mataqaana maqaaxiyaasha laga soo iibsado ama maqaayadaha laga soo iibsado way soo hoosgalayaan cuntada frieska oo kale ah ama baradhada la shiilo ee cusbada lagu daro oo saliidda lagu sameeyo iyadana way soo hoosgalaysaa mataqaana sandwichyada lagu sameeyo maqaaxiyaasha iyaguna way soo hoosgalayaan cunto walba oo cusbada lagu sameeyo sodium macnaheedu waa cusbo waaye marka cuntooyinka cusbada lagu sameeyo in aad iska ilaalisid oo aad ka fogaatid ayaa loo baahan yahay wax badan dhibaato badan ayay jirkaaga ku jirtaa waxaana la ogaaday jirkaaga inuusan u baahnayn wax cusbo la yiraahdo cusbo waa ka maarmi kartaa oo ma baahnid laguma talgelin jirkaagana looma sameynin dhib ayuu ku keenaya cuntada afraad ee loo baahan yahay in mar walba iska ilaaliyo waxa waaye cuntooyinka fast foods ka la yiraahdo cuntooyinka mataqaan sida McDonald's oo kale dadka soo mara aad bay fast food ka mataqaan u cunaan cuntooyinka ma garanaysaa markiiba la boobsiyo ee la sameeyo ee saliidda iyo cusbada iyo sonkorta lagu sameeyo marmarka qaar cuntooyinkaas fast food ka loo yaqaan wadanka aan joogno ama Europe oo kale hadaa joogtid fast food baa la yiraahdaa in aad joojisid cunadeeda ayaa loo baahan yahay sababtoo ah calorie badan ayaa ku jira calorie badan tusaale ahaan oo kale halkii sandwich ama halkii burger oo kale 1000 calorie ayaa ku jira uma baahnid 1000 calorie inaad hal mar cuntid oo gaajadana si fiican aanan kaga baabi'inin cunto fiican oo real ah oo run ah oo la taaban karo dabiici ah ayaa u baahan tahay saliidda ay ku badan tahay cusbada ku badan calorie-gana uu badan yahay waxaan oo dhan faraha ka qaad cuntada shanaad ee u baahan tahay inaan iska dhaaftid waxa waaye cuntadan dad badan oo anaga naga mid ah cunto ma aha laakiin cuntada lagu darsadaa in aad iska ilowdid ayaan ka rabaa ranjiga wax la yiraahdo ranjiga waa bahashan cad ee lagu darsado mataqaana saladka oo kale lagu darsadaa dad baa bariiska iyo baastada ku darsada dad baa wax kale u isticmaalo ranjiga cusbo meeran baa ka buuxda sidoo kale waxa waaye sonkor fructose sonkorta la yiraahdo ayaa ku jirta
sidoo kale waxaa waaye waxyaalo badan oo laisku qasqasay oo aan cunto ahayn oo loogu talagalay qofka jirkiisa in uu soo jiito cuntana aan ahayn dhibaato hadhowti ranjiga waxaa lamid ah cuntooyinka iyagana waxaa waaye lagu darsado saladka sida mayoneeska bahalka la yiraahdo oo kale sida waxaa waaye sooska kale oo lamidka ah loogu talagalay in saladka waxaas lagu darsado haddii aadan mataqaana iska dhaafi karin inaad iska yaraysid baa loo baahan yahay marka mar walba inaad ogaatid calaa cilmin inaad u ogaatid mataqaanaa cilmi ahaan howlahan ayaa muhiim ah so cuntada lixaad ee loo baahan yahay in aad magaranaysa iska dhaaftid waxaa waaye tan waan soo sheegnay laakiin waxaan rabaa inaan ku taagsado mar kale french frieska wax la yiraahdo baradhada waxaa waaye saliidda lagu kariyo caruurteena ee aadka u cunaan waxaa loo baahan yahay adigana weliga inaad cunin caruurtan aad ka ilaalisay inay cunaan sababta waxaa waaye baradhadaas macaanka iyada laga qaadaa dhiikarka laga qaadaa ma garanaysa xanuuno badan oo qofka ku dhici lahaa ayaa laga qaada waxaa laga qaada obesityga ama overweightka jirkaaga oo mataqaana aada u burnaada ayaa laga qaadaa marka ma garanaysaa french frieska ama baradhada saliidda leh iska ilow faraha ka qaad ha cunin caruurtaadana ha siin ha u dhaweynin cuntada toddobaad waxa waaye ice creamka waa in aad iska dhaaftid caruurtan aad ka daysid ayaa loo baahan yahay macaan badan baa ice cream ku jira waxaa waaye caruurtana way jecel yihiin marmar dhifa ina u keentid mooyaane ha uga dhigin wax joogto ah caruurta in ay ice creamka cunaan sababtoo ah uma fiicna iyagoo yaryar in ma garanaysaan sonkor ay bartaan sonkorta waxay leedahay wax la yiraahdo addiction sida waxaa waaye qofka isagoo daroogada la qabsaday oo kale waay marka sonkorta waxaa waaye jirkaaga hadday la qabsato way la weynaanaysaa way la koraysaa hadhowtiina way adag tahay sida iskaga dhaaftid dad yar baa xaqiiqda iska dhaafa sonkorta dhibaatooyin badanna way keentaa sonkorta hadda xanuunka ugu weyn ay keento waxaa waaye kansarka marka si gooni aan uga sheekeyn doonaa hadda ka horna waan ka sheekeynay laakiin ice creamka faraha inaad iska dhaaftida fiican caruurtan aad ka daysid qodobka ugu dambeeya ama cuntada ugu dambeyso aan raba inaad iska dhaaftid waxaa waaye mar walba iska ilaali cuntooyinka ay ku qoran yihiin sugar free cunto walba ay ku qoran tahay sugar free waa xayeysiin sugar free marka ugu horeysa cuntooyin fara badan oo kor ay uga qoran tahay arkaysaa sugar free cuntada markii lagu qoro waxa macnaheedu waxaa weeye sugarkii adigu aad taqaanay waa laga saaray sugarkii sonkortii adigu aad taqaanay ee caddeed waa laga saaray laakiin bedelkeeda waxaa la geliyey sonkortaas cad ka daran ayaa lagu shubay bedelkeeda marka sugar free haddii la yiraahdo qaraar maaha weli laakiin waa macaan laakiin sugarka sonkortii aan u naqaanay ayaa laga saaray marka cunto walba oo ay ku qoran tahay sugar free cunto maaha faraha ka qaad waa cuntooyinka lagu qaldamo saddexdan cunto aan soo sheegnay ama waa cuntooyin caadi dadka cunaan ama waa cuntooyin wax u eg oo dadku ay cunaan ama waxaa weeye sida cuntada oo kale loo cuno mar walba inaad iska dhaaftid ayaan rabaa insha allah marka walaalayaal barnaamijka waxaan jeclahay in faa'iido badan uu idiin sameeyey mar walba waxaan isku dayaa dadkeena waxyaalahay u baahan yihiin tusta itaabada ah in aan usoo gudbiyo dadkeena waxaa weeye wacyigelin xagga mataqaana nutritionka iyo dietka ama cuntada iyo nafaqada ayay u baahan yihiin weliba dadka ku nool wadamadan qurbaha ee usoo hijroonay sida North America iyo Europe aad ayaa cuntooyinka noocan oo kale dadka ugu cunaan marka waxaan jeclahay in casharkani faa'iido badan ay idin ahayd waxaan jeclahay casharka inaad u gudbisaan dadka saaxiibada aad la tihiin aad mataqaana la joogtaan ama social media kala socotaan inta aan iskaga arki doona casharkiisa kale waxaan jeclahay inaan idinkaga tegay sidaas iyo salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu